guddiga xuquuqul insaanka wadanka Itoobiya ayaa cambaariyay xariga suxufiyiinta iyadoo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya uu ku sii riixay gulif military oo ka dhaca gobolka waqooyiga oo ka dhanaa hogaamiyaasha Tigrayga ee ka soo horjeeda maamulkiisa. Boqolaal qof ayaa ku dhintay duqeymaha dhinaca cirka iyo dagaalada tan iyo markii uu ka qarxay dagaal toddobaad ka hor, waxaana sii kordhisay cabsida laga qabo in Itoobiya oo wadan ay ku nool yihiin 110 milyan oo ka dhici karo dagaal sokeeye oo ku salaysan qoomiyado. Waxaan mar kale ku celcelinayaa baaqeena waa in la ixtiraamo nidaamka saxda ah iyo cadaaladda. Daniel Bekele, madaxa guddiga xuquuqul insaanka ee dawladda, ayaa magacaabay 2 saxafi oo ka socda ururada madaxa bannaan ee wararka Itoobiya, kuwaas oo lagu xidhay waxa uu Bekele ku tilmaamay dambiye la xiriira saxaafadda. Taliyaha booliska Addis Ababa ayaa xadii waxay sheegeen inay xidheen 162 qof oo haysta hub iyo rasaas oo looga shakisan yahay inay taageersan yihiin ciidamada Tigrayga. Macadda wariyaasha la xidhay inay ka mid ahaayeen kooxdaasi. Ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya ayaa isla markiiba soo jawaabay codsiga in fala laga bixiyo guddiga badbaadinta suxufiyiinta oo ah ilaaliyaha caalamiga ah oo xarigaasi uga yeedhay dib u celin khatar ah oo ku saabsan tallaabooyinka u horeeya ee dawladdu qaaday wayna horumariso xorriyadda saxaafadda. Abiy ayaa ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize 2019 ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo military oo ka socda Tigrayga usbuucii la soo dhaafay kadib markii uu ku eedeeyay dawladda hoose halkaasi inay weerartay saldhig military. Waxaa jira cadaawado qoto dheer oo u dhaxaysa hogaaminta qoomiyadda Tigrayga ee waqooyiga wadanka Itoobiya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya kaasoo ka soo jeeda qoomiyadda ugu badan wadanka Itoobiya ee Oromada. Qiyaastii 2500 oo Itoobiyaan ayaa ka soo baxsaday xadka dhinaca Suudaan iyadoo dadka barakacayaan ay aad u badan yihiin. Qaramada Midoobay iyo sidoo kale Midowga Afrikana waxay ku baaqeen xabad joojin degdeg ah. Abiy ma u dhageysan codsiyada uga imanaya dhexdhexaadinta iyo diblomaasiyiinta iyo sidoo kale saraakiisha amniga ee bariga Afrika ayaa saasi sheegay. Manasan doonaya ilaa ay haatan xukunka la hor keeno cadaaladda, ayuu Abiy ku qoray bartiisa Twitter-ka goor dambe oo ahayd maalintii Salaasadii. Abdiraxmaan Isaaq, Star TV. maxaa wadada ku dhajiyay noo bana tariiqade maxaa ku dhacay walaaladiisa bangiga Daarsalaam lacag kala soo bixi lahaa oo kaalay maanad isticmaalin adeega kaafiya oo maxay adeega kaafi waa ku sahlaya adoo jooga goobtaada shaqo inaad lacag dhigan karto kana la bixi karto akoonkaaga Daarsalaam. haddaan isticmaalay adeega kaafi aad baad u maasantay.